sida wada sheekaysi loola bilaabo wiil gabadh ama qof aanad garanayn sideed ula bilaabi kartaa wada sheekaysi qof kugu cusub oo aanad garanayn maxay yihiin ereyada ku haboon ee ay tahay inaad tidhaahdaa maxayse yihiin ficilada saxda ah ee ay tahay inaad qaadaa si la mid ah sida aad uga barateen wax ka bara channel muuqaalkani maaha mid aan kugu sheegi doono talooyin aan micno buuran lahayn oo laga yaabo inuu qof kastaaba og yahay oo waqtigu kaaga lumo balse waxaan kugu sheegi doonaa talaabooyin iyo techniques aad u awood badan kuwaas oo ka caawinaya inaad si fudud wada sheekaysi ula bilowdo wiil gabadh ama qof kasta oo adduunka jooga oo aanad garanayn sida wada sheekaysi loola bilaabo qof aanad aqoon ugu horreyn fahan in qof kastaaba rabo in la aqbalo dadka inta ugu badani waxay rabaan in la aqbalo waxaanay jecel yihiin inay dareemaan in la dalbado inta ugu badan dadku waxyaabahay sameeyaan waxay tahay haba u badnaadeen kuwa kalsoonidoodu hoosayse inay dadka u tagaan ama la kulmaan iyagoo iska dhigaya inaanay wax dan ah ka lahayn ama ay iska dhigayaan sidii ay isla wen yihiin si ay qofkan ay ku cusub yihiin uga caddeeyaan inaanay sidaa u sii xiisaynayn si haddii mar dhow la diido aanay aad uga sii xumaan haddaba muddo kooban gudaheed isyar dhuldhig si la mid ah sida aad u rabto inuu qofku ku arko inaad tahay qof muhiim ah ayuu isna sidoo kale u rabaa in loo arko qof muhiim ah marka uu qofku arko adigoon weji furnayn oo is adkaynaya waxaa hubaal ah in qofku isna ka xumaan doono oo aanu wax dan ah kaa geli doonin iska hubi luuqadda jidhka ee qofka ka hor inta aanad la hadlin qofkaa kugu cusub waxaad u baahan tahay inaad ogaato xaaladda uu qofku ku sugan yahay tusaale ahaan haddii aad aragto qof moobilkiisa isticmaalaya oon wax kala qabanayn waxaad ku soo gebagabayn kartaa in qofkaasi aanu hawl ka lahayn isla markaana uu si fiican kuula wadi doono wada sheekaysiga isku day inaad hesho xog ku saabsan qofka miyuu qofku samaynayaa waxyaabo la xidhiidha waxa uu aad u xiiseeyo ma buug buu akhrinayaa haddii uu akhrinayo muxuu yahay ciwaanka buuggu ma laptop ayuu isticmaalayaa hadduu isticmaalayo muxuu ka daawanayaa ama website-ka ayuu ku jiraa inaad ogaato waxyaabaha qofka aad wada sheekaysiga la samaynaysaa uu xiisaynaya waxay kuu fududayn doontaa inaad kala hadasho waxyaabaha uu xiisaynayo tusaale ahaan haddii aan wiil kula kulmo jiimka waxa ii cad in wiilkaasi xiisaynayo inuu jidhkiisa dhiso inaan mawduuca kala hadlo wiilkaasina waxay ii fududaynaysaa inaan si fudud wada hadal ula bilaabo islamarkaana aan kala hadlo mawduuca uu xiisaynayo muhiimadda ugu weyni waa kalsoonida mid ka mid ah qaladaadka laga naxo ee dadku sameeyaan markay isku dayayaan inay wada sheekaysi la bilaabaan qofka ay isku cusub yihiin waa inay gergeriiraan marka ay qofka la hadlayaan sidii oo ay isku dayayaan inay qofka wax ka xadaan marka uu qofku arko adigoo gergeriiraya wuxuu ka shakiyi doonaa dareennadaada waxaana laga yaabaa inuu xataa diidaba inuu kula hadlo haddii aad rabto inaad qofka wada sheekaysi guulaysta la samayso waxa ugu fiican ee aad samayn kartaa waa inaad wejigaaga furfurto oo aad dhoolla caddayso istejiso islamarkaana aad isku kalsoonaato haddii aadba ku dhiiratay inaad qofka la hadasho geesi ku sii noqo inaad hadalkaaga sii waddo ilaa aad ka gaadhayso dhammaadka ha weydiin su'aal intaa kadibna ha ka dhaqaaqin mid kaloo ka mid ah qaladaadka ugu waaweyn ee ay dadku sameeyaan markay isku dayayaan inay wada sheekaysi la bilaabaan qofka ay ku cusub yihiin waa inay weydiiyaan qofka su'aal lagaga jawaabi karo haa iyo maya marka looga jawaabana ay iska dhaqaajiyaan sababtoo ah ma hayaan wax kale oo ay weydiiyaan si aad ula bilowdo qofka wada sheekaysi guulaysta waa inaad weydiisaa su'aal furan oon haa iyo maya lagaga jawaabi karin oo la xidhiidha waxa uu qofku xiisaynayo tusaale ahaan haddii aad aragto qof akhrinaya buug sheekooyin ah ha weydiin meesha uu ka soo iibsaday iyo inuu yahay buug fiican iyo in kale balse weydii dhacdooyinka ku qoran buugga waxaanad qofkaa ka dhigi doontaa mid si ballaadhan kula hadla ka tag qofka isagoo raba inuu wax badan kula sii hadlo marka aad la bilowdo wada sheekaysi fiican qofkaa kugu cusub ka dhaqaaq isagoo sii xiisaynaya inuu kula sii hadlo aan kuu sheego sir xataa haddii aad isku malaynaysa inaad tahay qof madax ah bilowga ugu horreeya qof kastaaba wuu ku xiisayn doonaa sababtoo ah iyaga waxaad u tahay qof khatar ah oo ku dhiiraday inuu la hadlo iyagoon garanayn meel aad ka soo gashayba isku day inaad ka tagtay isagoo qofku aad kuu xiisaynaya si aad marka dambe ee aad kulantaan ula samayso wada sheekaysi guulaysta kelmadaha ugu dambeeya ee sida loola hadlo qof aad ku cusub tahay fadlan si qaldan ha u isticmaalin xogtan ujeeddada aan muuqaalkan kuugu soo bandhigay waa inaan kaa caawiyo inaad ka takhallusto xishoodka badan iyo cabsida islamarkaana aad sare u qaaddo kalsoonidaada balse kuuguma soo bandhigin si aan kuugu caawiyo inaad kaga maadsato ama aad kaga xaraamaadsato qof kale aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin like saar subscribe sidoo kalena la wadaag asxaabtaada iyo eheladaada aad jeceshahay inay guul gaadhaan waa anigoo cabdirasaaq faarax ah tan iyo kulankeenna dambe haddii allaha awoodda la idmo nabaday